waxaan doonayaa in la xiro saldhig baa wixii saqab inta badan waxaan aragnaa iyadoo lagu yira dhagay dhalinyarada media dadka aadka loogu dhagay waad ka mid maxaad soran kartaa bulshada ama dhalinyarada kale ee media ku jira waad kaga duwan tahay oo waa lagu qabsadaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبي دي سلامنا خير تقارير سودا وهذا هلكن نقدر نسوي يوتيوب كيني على ورع والبلاي وحقرب كي تشوكا فردا فاتو أدبي كوسي دوني سودا ولا ولكن معاك يوتيوب كاغون كدوا هاي وأنا فرح سنة نكسو موقدو الله يعزك بسنكا الله ديك الله ديك واي أساسا نوضح حيسا سيكسر تبعد بيدي كان يديك مع علنا وقت كنا قارجة واحد دنيا سؤال يروح كوكوبا hortina aan bartaago waxa suura kala bulshada qaar kamid inay isweydiinayeen waxa suura kala qaar kamid xitaa laftiga inay kadis ugu noqdaan marka si kasta tawa waa loo fadhiyaa gambar baa loogu fadhiyaa horta marka waad qof barnaamijyada ku jirta tahay oo caan ah oo dadku aad u jecel yihiin dadaaladeeda iyo muuqaaladeeda xilli mad ku soo birtay aad bilowday ama ay ku dhalatay inaad barnaamijyada soo muuqato لتينا براب bulshada ka soo muuqdo 2021 laakiin si sax ah waxa soo galay 2020 si sax ah hade 2023 laba sano iyo dadaalka aad ka gaadhay top way ma sha Allah aad baan kugu ambaleyna qof kasta xibiskeena aaminsan markii hore waxba iska aaminsanay marka labadaas sano isbedel aad samaysay kulli xagga media aan dareeminaa maxaad iska aaminsantahay ma sidii hore iska aaminsantahay isbedel qof mar walba soo yahay ma ahaan mar walba isbedelayaa صح marka isbedel badan ay isbedelay haween walba qof walba aqliga ku kordho waxa ku soo kordho waad weynaatay marka horena waad yareed صح way su'aalkan ku weydiinaya qof kasta markuu doonayo inuu Hargeysa maadaama Soomaaliland ama meel oo aad u jeclaa oo aanu hore deegaan ku ahayn inuu dhex tagaa juhdi iyo dadaal bay ku qaadataa inaad Hargeysa aad timaadaan muddo intee la barto ku qaadataa walaahi weyn ma qaada habeena waxay ku dhalatay inay maada habeenkaas noo soo baxsanaheeda ay ku dhalatay yes way hore waan u jeclaynaa imaada inaad timaadaan baa u jeclaa waa hagaag dadku badanaa aad bad u difaaci jirtay Soomaaliland meelaha qaar hadda life ku jirto kale hadii wax laga sheego kale waad ka guban jirtay waxaas ma jacayl aad u qabtay ahayd mise asxaab fara badan baad ku lahayd mise family baad ku lahayd mise shakhsiyadooda iyo dadnimadooda ayaad jeclayd horta number 1 waxaan jeclaa shakhsiyadooda dadnimadooda iyo dadnimadooda number 1 horta reer Soomaaliland waxa ku jeclaaday qadiyadooda aan jeclaa qofkiinu qadiyadiisa ku faano qadiyada yaqaan number 1 qadiyada Soomaaliland waan ku jeclaaday waan jeclaa Soomaaliland mar walba love buuran baa ku ahaa reer Soomaaliland asxaab badan oo ku leeyahay dad badan oo wanaagsan waan ku leeyahay soo dhaweyn dad badan oo ii qabteen samatara kamida lagama hadli karo waa hagaag horta waa kaaga mahad celinaa waqtiga qaaliga laakiin mid baan ku yara weydiinaya kulli Hargeysa imaanshaheeda maxaad ka aaminsanayd markaad imanaysay sawir noociyay baad ka haysatay sawir waxa ka haysteen dadka la xiro in dadka la xiro waan ka aaminsan laakiin dirtaan dadka lama xiro hadee kooxda war waan xiri jiray marka waxa inkastoo dadka iskama xiraane qofka af dheer baa la xirayaa way waxa la sheegay xalay talo kale inagoo wada joogna xil maqleynay in la hawa la xiray faatush la xiray ha in yarna qofka la soo dhaweyn waay oo soo dhaweyn waxaan la siin waay baa dhahay waa la xiray laakiin shakhsi Soomaaliland ma dheen waa la xiray ma jeclaan la in yar liinteena la dhamiso saacado yar allah waan aniga la xiraa barbe ma la xiran be waxaan doonayaa in la xiro saldhig baa wixii saqabay liintaas rati way liintii marka avocado lagu bedelay iyo liin macaan marka waa hagaag waxaan doonayay sidoo kale inaan ku weydiiyo su'aasha kale ah iyadana ah intii aad joogtay magaalada kala lahjad baynu nahay dadku badan ay isku qaldaan luqada waa laga sameeyay af Soomaali baa lagu wada hadlaa laakiin lahjada lagu kala duwan yahay wax ka yaabiyo kugu soo istaagay ama wax aad dalbatay oo cid ku faahantay aad weyday
maxaa ka mid ahaa dalbaday sharaabaan jeclaan waa dalbaday waay qof meherad walbaa taga waa fahansiin waaye markii dambe fikrad ay ugu soo dhacday sharaabka waxa laga qasay kan kale waxa laga qasay magacyadooda inaan sheego idinku magacyo kale u taqaaniin isku luuqadna ma lihin laakiin lahjadiina waan jeclahay waa sax sharaabkaas keegu ahaa maanka xaliim ma taqaanaa ya maanka xaliim maango xaliim xaliim waa maango wax lagu daray soo maarta caano waa maxaa taqaanaa maangiya caano la isku daray caano iyo maango la isku daray waa maango laga yara qafiifiyey oo caano laga qafiifiyey maangada waxaan arkayaa qof leh gaas baan leeyahay yara qafiifiya maango waxa u taqaaniin maango iyo caano inta isku jira maango lay u taqaaniin gaas badada soo ma war maango xaliin ma taqaaniin anu qof gaas tirile baa oran karo caanaha igu badiya laakiin weligay ma maqal cambaha bas maa kasatiin caana ku darsateen maangada maangada caana lagu daraa laakiin maango xaliin leeyahay caana lagu daray ma arag de macnaha magaca loo sameeyo laakiin maango waa maango allahu akbar iyo wax badan bay wadaagnaa su-aasha kale duniyaan ku weydiiya waxa weeye magaalooyin badan baa tagtay oo aad dalxiis u tagtay oo lagugu soo dhoweeyey qaar aad deegaankaagii ood u dhalatay qaar ka mid ah deegaanadaadii aad in badan joogi jirtaa oo ka hor aad tegi jirtay hargeysana waa timi intii magaalo aad tegaysay iyo intii deegaana aad tegaysay iyo intii aad nairobi xitaa wada aadhamaya aad wadama tegaysay meeshii ugu soo dhoweynta quruxda badnayd kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kaalinta saddexaad meesha ugu soo dhoweyn qurxooneed haddii aan qalbi ahaan iyo run ahaanan ka hadlo waa hargeysa meel walbaa tagaba faatuush dee dhallinyaradii oo dhan way igu soo ordayaan soo dhoweyn waxaa lama oran karo jaceylkay i qabaan ka weyn anaa u qabo hadalku waa intaa dhis haddeertaan gobolka ka nimaana magacii waxa weye gabile ilaah baan ku dhaartay hoolka markaa gale bismillaahi dee inta qalqi oo ku jiro dhan faatuush waan ooye xitaa anaha ma jeclaysteen muddadii yara kordhisatay saad nolol sii joogto waan jeclaysan lahaa waa hagaag si wacan magaalooyin kale waxaan leenahay laydima necba laakiin waa laydiga soo kalgacal batay ana kalgacalkeena Soomaaliland ani qabaana another level oo nagu soo noqon doonta maxaa waaba idinka iskiin jeclaysiiya bishiba mar baan iimaanay bishiba mar aada wey oo soo dhaweynaa anaguna waxaan faatiyo ku weydiinayaa kale dadku markay media ku jiraan ama baraha bulshada ku jiraan waxa jira wax aad sidaad u tiri maahaane si kale lagugu bedelayo oo qalad aad u arkaysa marka dambe kaa dhacay inuu noqday laakiin sidaad u wadeen noqon waayey ma jira hadal gaf ama eri kaa dhacay oo sidii aad u wadeen maahay si kale loo turjumay mid ma noo yar xusi kartaa ma xasuusti laakiin kol eray aan si wanaaga u dhahayba si xumaana loo bedelay way buuxaaree komitiya noole maalmaa laga raysan karaa waay inta badan waxaan aragnaa iyadoo lagugu yara dhegay dhalinyarada miidiyaha dadka aadka loogu dhegay baad ka mid tahay maxaad soran kartaa bulshada ama dhalinyarada kale miidiyaha ku jira waad kaga duwan tahay oo waa lagugu qabsadaa su'aal weydiiyaa qof xun oo lagu dhegan yahay maad aragtay qofka wanaagsan unbaa lagu dhegaa sax su'aal weydiiyaa qof xun oo lagu dhegan yahay maad aragtay qofka wanaagsan unbaa lagu dhegaa sax oo qalbi wanaagsan oo xumaan iyo xan iyo waxna aan aqoonin aniga waxaan ahay naagta keliya oo Puntland joogto oo Muqdisho joogto meel walba aan joogto naagta keliya ugu cadowga badan baa ahay naagta keliya ugu cayda badan baa ahay saqiir iyo kabiir naagta ugu cay saasay tahay naagta loogu jecel yahay social media waa mid la yaabanahay waa ugu cadow badanahay haddana waa laygu jecel yahay macnaha meelo waxaad arkaysaa aad lagaaga soo dhaliilaya lagugu caayo laakiin marka aad tagto kalgacal aad ugu tegeyso ood soranayso macnaha dadkii iyo wixii ku su'aal weydiiyaa qof xun oo lagu dhegan yahay maad aragtay qofka wanaagsan unbaa lagu dhegaa sax oo qalbi wanaagsan oo xumaan iyo xan iyo waxna aan aqoonin aniga waxaan ahay naagta keliya oo Puntland joogto oo Muqdisho joogto meel walba aan joogto naagta keliya ugu cadowga badan baa ahay naagta keliya ugu cayda badan baa ahay saqiir iyo kabiir naagta ugu cay saasay tahay naagta loogu jecel yahay social media waa mid la yaabanahay waa ugu cadow badanahay haddana waa laygu jecel yahay macnaha meelo waxaad arkaysaa aad lagaaga soo dhaliilaya lagugu caayo su'aal weydiiyaa qof xun oo lagu dhegan yahay maad aragtay
qofka wanaagsan unbaa lagu dhagaa sax oo qalbi wanaagsan oo xumaan iyo xan iyo waxna aan aqoonin aniga waxaan ahay naagta keliya oo Puntland joogto oo Muqdisho joogto meel walba aan joogto naagta keliya ugu cadowga badan baa ahay naagta keliya ugu cayda badan baa ahay saqiir iyo kabiir naagta ugu cay saasay tahay qayb baan karnay waxa jira qofku dad uu aamino ma jirtaa weli qof aad aamintay oo si fiican u aamintay oo isku dhiibtay oo ku dhibar jabiyay الله وين المياه ربطة بقول قف جرا قف حاجرة ونلشي ذا فرتان كساري قف حاجرة سرتي إذا أنت ينس كدبع ذا حتى أوجا وحير ونلشي ذا قصة بيري أوجا وأنا سعسين جري ورجع وحكي دعايو بناك وحكي سميني وحول با سؤال بديا قف حنا لو دقيقة ما نرنتي qofka wanaagsan unbaa lagu dhagaa sax oo qalbi wanaagsan oo xumaan iyo xan iyo waxna aan aqoonin aniga waxaan ahay naagta keliya oo Puntland joogto oo Muqdisho joogto meel walba aan joogto naagta keliya ugu cadowga badan baa ahay naagta keliya ugu cayda badan baa ahay saqiir iyo kabiir naagta ugu cay saasay tahay naagta loogu jecel yahay social media waa mid la yaabanahay waa ugu cadow badanahay haddana waa laygu jecel yahay macnaha meelo waxaad arkaysaa aad lagaaga soo dhaliilaya lagugu caayo laakiin marka aad tagto kalgacal aad ugu tegeyso ood soranayso macnaha dadkii iyo wixii kuu hanjabayey qof iga caynaya baa markaa face iskugu nimaano wanaag bay tusay laakiin dhabarku iga caynaya sax aad weyn way dhacdaa waa hagaag waxaad jirta aroos baad dhigatay aad u qurux badan maasha Allah si life ahna loola socday waxaa jiray haddana xaflad aad qabatay oo dadkan waa aroos kale dadka qaar waxa ay ka dhigayeen ku xumayn shakhsiyaad gaara inkastoona jeclaan magacaabo inaad ku xumaynaysaan oo kale leeyahay macnaha kii hore gaari maayo kan gaari maayaa inkastoo labaduba aanay kala dhicin oo labaduba aroos la wada moodayay maan xaflad la mooday waxaa sababay inaad xafladda ama arooska labaad juhdiga intaa leeyaad ku bixisaan maxay idigu dhaliyay ama idigu sababay sanad guuradeeda ahaydno sax waqtigii lay guursaduu meherkaygu dhacay unbuu ahaa sanad guuraa u dhigtay cida aan nolosheeda cidna kuma xumeynayo noloshaan aniga noolahay shakhsi bidaaadana dartiis anoo hool iyo buuq iskuma furay iskuna gelinaya daf anoo ila mida waa naftayda un badleeda naftaydan raali gelinay naftayda farxad siinaya way aad weyn annaguna qayb baan karnay wax jira qofku dad uu aamino ma jirtaa weli qof aad aamintay oo si fiican u aamintay oo isku dhiibtay oo ku dhibar jabiyay الله وين المياه ربطة بقول قف جرا قف حاجرة ونلشي ذا فرتان كساري قف حاجرة سرتي إذا أنت ينس كدبع ذا حتى أوجا وحير ونلشي ذا قصة بيري أوجا وأنا سعسين جري ورجع وحكي دعايو بناك وحكي سميني وحول با أنا أدوك على ذا وحنا تبي وحياة بدنا كفلنا إني بس wax ma ka baratay waxaan ka maxaa kamid ah saran kartaa yaa dadka dhan uga go'ay gooni socod aad weyn nin maalak naag waaye aad weyn badanaa dumarku waxba isku muquraan badan ma mad aamisata kelmadda horta waan aamisana laakiin aniga dumar lama soo korin sax 12 rag baan kaliya dumarka aan la soo koray la soo dhax koray marka sida rag yaa u dhaqmaa dumarka saa u dhaqmaan dumarka soo samaxantaan meel intay wadi maadaan dumarka ma sheekayaan wallahi ana dhaqan kaamilay dhaqankaasna ma aqaan si wacan su'aal kale ku weydiinaya waxa filayaa su'aalaha inaad kugu badiyay waxaan arkay inaad qeyrotay oo tiri qof macnaha dadka aamina oo noloshooda qofkan aamino noloshiisa u wada bandhigaan jacaylkaaga maanta 3 4 5 ilay ku qeexatay qoynaado maxaad ku qeexilay horta ani jacaylkayga waa jacayl daacada sax haddeertaan hal hooyada iyo aabahay iyo cunugayga markii laga soo reebo waalidiinteeda markii laga soo reebo hal shakhsiyaan adduunka ugu jeclahay si wacan shakhsigaasna oo jacayl dareen leh aan u jeclahay waa odagayga allah ya isag allah isu kiindaayo su'aashii ugu dambeysay baan dunyada ku weydiiyo dumarku badanaa aad bay u neceb yihiin in lala guursado waxaa jira laba shay bay jiraan ama 3 baa jiraan oo sidaan ka cudur daarto waxaa jira dumar aan jeclayn in lala guursado waa koow iyo waxaa jira dumar jecel hadduu ninkooda guursanaya in iyadu ku dhisto u doorto iyo waxaa jira dumar aan iyagu una doorin kana masayrin laakiin haddii uu isagu doonto oo guursado
aan keer garaynin oon wax problem aanu haynin way dhacdaa ma jeclaan lahayd adigu laba option haddii mid aan ku siiyo mid u doori lahayd odagaaga hadduu miyaro dooran lahaa aduu miyaro ma samaysan lahayd xataa miyaradii reer ninka ragga isagoo xaasalabaad wuxuu ku doontay iyo wuxuuna ku doonan baa kala jirto waxaa fahantay soomaan markuu ninka naagtiisa wax ka waayo nadaafad haddee tahay naagnimo haddee tahay dee gurigaaga wax ka mid hadduu ninkaaga uu kaa waayo dee wuxuu naag ku doonto waa sax laakiin haddii aad tusi weydo wuxuu naag ka doonto taas naag ma doona laakiin ninkayga markuu aan wax walba uu u baahan yaha uu iga helo wuxuu naag ku doontay ma jirtaba xitaa kuma fikiraya inuu naag kale iisoo laguma dhacadhe waaye su-aalo badan baa ku weydiiyey su-aalaha ma erey ama laba ama saddex ma ka xasuusan kartaa aad oran karto way habbooneed inaad i weydiiso oo kaa dhex guuxaysa teebaa ka mid a